buu noqonayaa laba gaari baa culays ayaa mara isku dhaafi kara culayskan ugu tala galnay waxa weeye 40 tan inuu noqdo oo gawaarida almost inta dalkeena yaalaaba way dul mari karaan bridge-kan insha Allah way dul mari doonaan waxa maanta farxad weyn oo ah inagoo dhagax dhigayna bridge-kii ku talaabay Shariif Cali kaasoo ah magaalada Gabiley bridge-kii labaad ee inta dalka lagu soo noqday la dhiso ka shirkad ahaan waxaan anagu aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo aanu ku guuleysanay bridge-kii hore ee loo dhisay magaalada laguna mahadiyay sidaas la mid ah ayuu bridge-kan oo kale yahay oo dadka dhibaato ugu hayay oo la isku talaabi lahaa 4 sanadood ayaan ku riyoonayay waana hurdowriyay iga soo baxaysay buurta ilaahay tiinoo rumaynayo khayraadkiina oo loo soo baxayo gobolkan Gabiley wax badan bay xukuumaddu ka qabatay oo hoosta waa lagala socdaayo gobolada kale la tartamaya marka la yiraahdo waliyo biyo xidhay wanaagsan baa laga sameeyo Gabiley badiba way ka maarmaysaa halkan ku dabaalanaysa malaha biyo fiican way ka socdaan kan iyo qaar kale codkooda u gooyay baan oraa muuse waxa kale oo ku xigta madaarkii oo furmay Berbera waxa soo dhabi waa wax qabad waaweyn wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo muddada kooban ee wasaaradii hore ee jidadka joogay hadda tagtaan gobolkii saaxil iyo Berbera wixii bridge u dhaxeeyay Berbera iyo Hargeysa dhamaantood 80% way dhamaadeen wax ilaahay loogu mahadnaqo weeyay wax madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loogu mahadnaqo weeyay wax wasiirkii xilka hayay loogu mahadnaqo weeyay qorshihiisu runtii wuxuu ku yimid qorshaha fiditaanka magaalada ee golaha deegaanka ee Gabiley ay diyaariyeen waliba golihii hore 2018 baanu bilownay magaalada Gabiley qorshaha fiditaanku inuu u yimaado iyadoo magaaladu qorshe leh ay fido runtii asayeeshee waxaanu aad iyo aad ugu kalsoonahay anagoo ka duulano waaya aragnimada bridge-kii hore in aan looga warwarin shirkadaasi oo runtii xilkasnimo leh bridge-ka u fulisay kana iyadu maanta ku guuleysatay oo aan aad iyo aad runtii ugu kalsoonahay in si wacan uu dhismi doono bridge-ku lahaa waxa inoo sharxay injineeradii waa bridge aad u muhiim ah dhererka 9 mitir ah istaaga dhankan 12 mitir gaaraya 25 sidaa u ah runtii waxaan rajaynayaa bridge-da ugu qaalisan ama ugu qiimaha badan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqonayo oo goobjoog u ahaano in bridge weyn oo runtii si casri ah loo dhisayo oo noociisu uu ku yar yahay dalka Soomaaliland in maanta gobol Gabiley laga dhagax dhigo taasna waxay muujinaysaa runtii jeclada iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi horumarka ay dalkan u saanqaaday wasiir waan kaga mahadcelinaa adigii wasaaraddaadaba qorshahaas runtii iyadoo sanadku dhammaystiran loo fuliyay waxaan leeyahay bridge-kani wuxuu ka mid yahay mashaariicda aynu ugu talagalnay qarankeenan waad ogtiinoo intan joogay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ku dhawaad dhowr iyo 50 bridge oo noocan oo kala ah ay xukuumaddani fulisay Gabileyna iyo guud ahaan gobolka Gabileyna inay magaalada noqon doonto waa la tartamayaa ee magaalooyinka tartanka xagga hore 2 iyo 3 baa la isku hayaayay 2 iyo 3 soo gali doonto insha Allah haddii la ka dhigo bi'ad ahaan iyo deegaan ahaan dad ahaanba marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu mas'uuliyadda aanu qaadnay aanu maanta ilaahay noo suurtageliyay way la xajay telefishinka qaranka Gabiley.